بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclaystay inaan la wadaago sheekiyar sheekaas waxay ka saacideysaa inaad qaadid yoolka ama higsiga aad ka leedahay nolosha sheekada magaceeda waxa la sheekada tartankii raha maalmaha kamid ah waxa tartan qabsaday rah aad u fara badan raasi si tartanka loo adkeeyana waxay sameeyeen in buur dheer cirifkeeda sare in la koro kan ugu soo hormaro buurta cirifkeeda sare soo korana inuu ku guuleysto tartanka waxa ka soo qayb galay daawadayaal aad u fara badan markay tartankii orodku bilaabmay daawadayaashii waxay ku qeylinayeen cod aad u dheer ee leeyihiin tartankan kuma guuleysan karaysiin aad buu adag yahay suuragal ma inuu guuleysatiin mar walba marka dambe daawadayaashii aad bay codkooda usii dheeranayeen tartankiisu u socday midba midka ka dambeeya sidoo tartankii uu daalayay qaarba qaarka ugu dambeeyay kasii hareen tartankii waxaa buurtii ciidankeeda u sareeyay u dhawaaday qaar yar oo ka mid ah tartankii ku jiray raha haddana dadkii aad u sii qeylinayeen suuragal maaha wadadan aad u adag tahay buurtan aad u dhib badan tahay ma kori kartiin aad u qeylinayeen markii ugu dambeysay rahi midba midka ugu dambeysay u haraayay rahi mid ka mid ahaa ismuusan dhiibin uu orday ilaa uu ka gaaro meeshii lagu ballamay ee ahayd cirifka sare ee buurta dadkii aad ula yaabeen ula tacajabeen buurta ugu sareysa sidee suuragal ugu noqotay buurtan aad ku rafaadka badan u dhibka badan siduu ugu suuragashay inuu gaaro marka mid ka mid ah rahyadii ayaa isiri ninkan adag ee guuleystay ee buurta dhakadeeda koray bal u tahniyey oo u mahadceli oo dheh waad guuleysatay waxaan kugu tahniyeynayaa inaad guuleysatay markuu usoo dhawaaday uu rabay inuu u tahniyeeyo ayuu wuxuu arkay rahan uu tahniyeynayaba inuu dhagoolo yahay uusan waxba maqlayn taas maxay ku caddeynaysaa aniga adiga iyo dadka kale oo dhan markuu qofka doonayo inuu dariiqa iyo waddada uu rabo inuu nolosha uu ka leeyahay inuu gaaro haddii ahaan lahayd waxbarasho haddii ahaan lahayd riyooyin kale qofka uu leeyahay mar kasta waxaa jiro dad cod dheer ku qaylinayo oo dhahayo suuragal maaha inaad shaaf garaysid suuragal maaha inaad dariiqan dheer ee adag inaad ka guulgaartid oo cod aad u dheer ka qaylo dheer codkiisa gudaha ee dhahayo waxaan waad awoodaa waad samayn kartaa haddana waxaa ka qaylo dheer badanaa sahmeynta ay ku leedahay bulshada ee leedahay way adag tahay aniga stuudiyahaneed cilmiganeed rabay inaan barto way igu adkaatay waa iska joojiyey aniga inaan shaqadan qabta rabay way igu adkaatay shaqadan waa iska joojiyey anigaa rabay inaan caafimaadka barto caafimaadka way igu adkaatay waa iska joojiyey taasi waxay ku caddeynaysaa qofka hadduu asaga og yahay ujeedkiisa uu nolosha uu ka leeyahay waxay doonta ahaato inuu gaarayo horta maxay kuu sheegayaan dadkaneeta waxay kuu sheegayaan wuxuu ku leeyahay waxan way adag tahay haddii adag tahay asagunba u adag tahay adiga kuma adka waxaa suuragal ku ah inay kuu fududahay oo aad ka gungaari kartid marka ha dhegeysan nolosha hami kastoo aad ka leedahay ku dadaal inaad ka gungaartid waxaan ku rajeynayaa inay kuu fududaato ilaah idinkiisa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.